السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada waa janka injineer Axmed Commando saac waa ku soo aragteen maanta insha Allah waxaan ka shaqeyn doonaa dhismo yar oo waxoogaa ku dhacay crack muddo dhisnaa laakiin uu dhacay dildilaacaasoo sababay waxyaabo badan yani inuu gurigii marmarkii dilaaco slaabkii dilaaco gidaarada qaar dilaacaan kaas insha Allah ku sameynaynaa muxuu ahaa dayactir repairing run ahaantii dee dhismayaha markuu hawshaas oo kale ay kusoo biirto oo kale kharashna soo kororsadaa sidoo kalena waqti soo kororsada insha Allah marka maanta kaasaan ka shaqeyn doonaa insha Allah waxyaabaha xalka u ah iyo waxyaabaha sababay iyo asbaabaha keenay waxaas oo dhan ba insha Allah video ku arkinaa insha Allah waxaan rajeynayaa in uu inoo noqoto faa'iido yani waad u jeedin xagu ka soo biloomay dhulku ka soo hoos galay saas uu socday يعني هذين مال جحمته صاصون بقصانيا إلى جذوه كلا إن شاء الله ونقال دونا سأل شيء دي واحد جونا وأصعد كلا يقولك دلاعي سهرين يوسف شيء ساسو صعدي intuu socday waa ka xagan galay marmarkan maandhow ka jijabinay isaga laftarkiisa hoostaas oo dhigi doona saa intuu socday ayuu waxa uu soo galay ilaa guriga ayuu soo galay yani dilaaco soo jeedin markuu xaggaa ka soo galay waa kaas soo jeedin intuu socday xaggaas u raacay waa kaas هذا حاجة قاعدة صوص عليه جلوس صدح معي هكذا لك كتبنا صوص عليه كان تجون ده يود الله لك أصعد كده بحي وكمان صاير كده جريه intaasoo dhan waa dilaaca intaan kuma istaagin haddaad ujeediin waa gidaarka kale dhinaca kale sideka kale marmarkii haddaynu tusay sidekiisa kale marka laga soo baxo aduu bilxaasil ilaha wuxuu ka dhex baxay guriga ayuu dhinaca kale uga dhex baxay marka waxyaabo badan baa sababo dilaaca sida hore inuu soo sheegay kana wuxuu noqon karaa yani inuu ku toos director uu soo galay uu yahay oo sababay inuu yani guriga soo dildilaaco markaasaa maanta inii sheegayba intaa hore ayaan ka shaqeyn doonaa insha Allah kadib ayaanu imaan doonaa gudaha iyo wax lagu sameynayo doona insha Allah laakiin hadda waxaan sameynaynaa ka hortagis yani inuu ku kala soo gelin oo kale si uuna yani haddana damage badan u geysan guriga laba shaqaan ka qabanaynaa shaqada koowaad waxa weeyaan in uu ku labaad soo gelin marka waxaan sameynaynaa size-ka ayaa waxaan ka soo kacaynaa 40 waana qodaynaa 70 ilaa size-ka laga gaaray 70 hoosta ah kadib waxaan ku shubaynaa ciid niis oo taasoo una marin muxuu ahaa una marin dilaaco oo ka awood badan tahay soo jeedii asxaabi waxaan taaganahay afka hore ee guriga waxaan qodi doonaa square ahaan isku wareeg saddex wareeg ayuu gurigu ka bannaan yahay wareeg laakiin guri baa kaga dhajisan marka waxaan qodi doonaa saddexda wareeg waxaan saa usoo kici doonaa 40 hoostana waxaan qodi doonaa 70 0.70 meter 0.4 na waan kasoo kici doonaa saad u jeedin shaqadii baan bilownay oo xagga hore aan ka bilownay qodistana way adag tahay ma ogtahay waxaa laga yaabaa inuu gidaarku kugu dumo oo markaa horey baan uga soo kacnay muxuu ahaa in gaarisa 20 ayaan horey uga soo kacnay saad u jeedin asxaabay qodistuna way adag tahay ma ogtahay side way adag tahay maadaama guri dhisan aad qodi kartid yani caqabad badan baa kaaga iman kara in guri dumo inaad size-kii damage u keentid foundationka damage u keentid waxyaabahaasoo dhan baa ku dhici kara marka asxaabay saa u jeedin wajahadan waa wajahadii hore ee guriga
ciidaasaa laga soo saaray. Ciidaasoo aad u jilicsan oo yani waa ciidii normalkii oo uu yani dilaacu iska dhex mari karo oo uu guriga toos u tegi karo. Markaa waxaan sameyneynaa intaasaan qodaynaa iyo wareega kale. Sidaa ujeediinba markaan soo maraynay wuxuu ahaa intaan soo qodnay ayaa waxaa naga hortagtay catabadaasoo qasab inay noqoto in iyadoo dhan la timiyo maadaama aan u baahannahay inaan saas ku wada xidhno intaasoo dhan. Run ahaantii catabaduna wax saasa kama sii koobnayn, waxay ka koobnayd keliya block iyo siman isku jira, sabad caadi ahayd. soo taasoo nagu qasabtay yani inaan la dubino. sidoo kale isku wareeg saan horey noogu sheegay saa ujeediin saddexda side waan qodnay, laakiin sideka dambe ayaa nagu adkaaday oo maadaama dee jago ay naga dambeyso oo amar la-aan aan iska qodin karin dhulka maxaa soo waqti qaadatay intii la weydiinayay. Laakiin maalintii dambe ayaan usoo laabanay oo waan dhamaynay, waan qodnay iyadoo dhammaystiran waan qodnay. iyaga laftarkoogu ciid bay iskaga soo shubeen si yani waxyaabaha damage biyuhu u fadhiisan oo kale ay ciidana intaan u baahannahay waan sii xisaabinay maadaama noo xisaabsanayd inta aan hoos qodayno iyo inta uu leekaanayo balarkiisu. Kadib waxaan ku dhufanay inta side uu yahay. ugu dambeyn waxaa noo soo baxday 17 mitir cubic. saasaanan ciidda u dal markaan dhismaha ku jirnay dad badan isweydiinayeen maxay u taraysaa ciid unbaa laga soo faqayaa ciidna waa lagu gurayaa. runaatii ciidda aad ujeedin waa ciiddii aan kasoo faqnay, organic bay ahayd, wax kasta ka dhex bixi karayay. laakiin tan aan hadda ku gurayno waa tii caadigii oo chemical kuma jiro wax yani geed ama yani bacteria ha noqoto waxaas kuma jiraan. iyadu way fiican tahay, that's why baa loogu isticmaalaa markaste sibirka loogu xoojiyaa dilaacuna ma karayo. sidoo kale wax xidid ah oo ka dhex bixi kara ma jiro, ama ha noqoto geed inuu ka dhex baxo ama xididku ka dhex baxo. way ka yar awood weyn tahay muxuu ahaa ciidda kale. laakiin nooca kale ee ciidda dhulka caadiga soo markasta uu ka baxaa geedku. sidoo kale xayawaanadu waa caadi way fikiraan, laakiin tan markay muxuu ahaa in badan lagu shubo wax dilaaca oo ka dhex baxaya ama wax geedo oo galaya gurigii ma jiro. buuxintiina saasaan ku dhamaynay. muxuu ahaa in yar baa ka dhiman sideka kale, laakiin saasaan ku buuxinay iyada oo dhan. laakiin waxoogaa wax yar baan khaldanay, waxay ciidda inaan side kasta dhigno dee imika waxay ku noqotay in 2 jeer soo tuuraan yani ciiddii. markii hore waxay yani haddaan dhinac qeyb dhigi lahayn, qeybna dhinac kale dhigi lahayn, qeybna dhinac kale dhigi lahayn, tartiib unbay ugu guri lahaayeen. laakiin markii hore aan qaldanay oo ciidda hal meel baan iska dhignay. laakiin nasiib wanaag waa la dhameeyey. sidekan waa lagu wada shubay, sidoo kale sideka kalena waa lagu wada shubay. saasay ku dhamaatay muxuu ahaa buuxistii oo dhan. dhinaca koskana muxuu ahaa shaqaalaha yoomi ma ahayn yani daily waxba lama siinayn, laakiin contract baan kala qoranay yani in ay intaas mitir cubic ay igu qodaan yani lacag intaa leeg. run ahaantiina markasta qiimuhu waa muhiim in ay la socdaan. marka yani qodista 17 mitir cubic bay ahayd. marka 2 milyan oo shilinka Somaliland ay noo qodeen dollar ahaan waxay noqonaysaa $240 ay noqonaysaa qodista. sidoo kale ciiddu noocii niiska ahaa iyaduna 1 milyan gaaraysa halkii 10 mitir cubic. qiimahuna waa kaas. asxaab insha Allah inaad ka faa'iidaysateen baan rajeynayaa. hawshaas oo kalena markaad qabanaysid yani waa inaad shaqaalaha kula heshiisid yani intaas hadii ugu dhameynaysiin. laakiin hadday noqoto yoomi shaqadii maalin lagu dhameyn lahaa waxa laga yaabaa inay 2 cisho ku gaadho 3 cisho ku gaadho. laakiin haddaad hal mar la heshiisid halkaas unbay ku dhamaynayaan oo iyaga laftarkooga dadaalaya. taana waxay kaa saacidaysaa koskii iyo waqtigiiba way kuu safe garoobayaan oo yani shaqadiina si fiican bay kugu qabsoomi kartaa. ciiddii markaan ku shubnay buuxinay ayaan xagga sare waxaan ka saarnay waxoogaa ciiddii aan kasoo faqnay. markii hore ayaan korka sare saa uga saarnay caadi ahaan si ay yani wax
ciidda kale ay dee uga dumnaan dhulka isla ciiddii saran baan kor ka saarnay. Dhinacan kalena waa kaa ujeediin kaabadii xagga ka duminay wataas sidoo kale tooskaasaan raacinay saasaan ku dhammaynay xagga qeybtaas iyo qeybta dambaba. asxaabi saan hore inigu sheegay waxaan qabanaynay laba shaqada oo koobaad oo maanta qabanay oon dhammaynay oo ahayd ka hortag yacni inuu guriga uu soo gelin dilaac kale. shaqada labaadna insha allah video ku dheeraaday waxaan ka dhigi doonaa insha allah qeybta labaad muxuu ahaa qeybtaasoo noqon doonta sidii loo habeyn lahaa dilaacii oo ready galay guriga sidii loo dayactiri lahaa iyo sidoo kale muxuu ahaa gidaaradii iyo waxa instrumentiyada iyo wixii material la isticmaalo dhan insha allah videogaasaan kaga hadli doonaa insha allah. asxaabi videogu dhamaaday insha allah ha iloobina inaad nagu soo biirtiin sidoo kale like iyo subscribe insha allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.